سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaana wanaagsan idil ahaantiin kusoo dhawaada kanaalka Kamil Training oo aanu ka baahina culumta IT-ga iyo tiknoolajiyadda oo mar kale iyo taxanaheeni HTML oo aanu ka baahino channelkan Kamil Training. waxaynu soo qaadanay laba cashar oo casharkeena ugu dambeeyay ahaa habka loo sameeyo website adigoo isticmaalaya luqadda HTML. إن شاء الله تعالى waxaynu ku baran doonaa casharkeena saddexaad laba tag oo muhiim ah. labada tagna waxay kala yihiin HTML headers iyo HTML fonts. HTML headers haddii aynu isla eegno qeexitaankeeda, HTML headers is used to define heading of a page. waxaynu leeyahay HTML headerska waxaa lagu qeexaa inay tahay ciwaanada ay yeeshaan web pageska ama website-yadu, taas oo ciwaan looga dhigo taytalada kala duwan ee la gelinayo website-kaas. Also heading are defined by HN. sida oo kale headingka marka la joogo luqadda HTML waxaa lagu qeexaa amaba loo qoraa ay syntax ahaan ugu qorantaa luqad ahaan HN. H garanay oo waxay u taagan tahay header, halka ay n2 taagan tahay lambarada 1 ilaa 6. lambar 7 ma gelin kartid oo waxun bay luqadani aqoonsan tahay ciwaanada u dhaxeeya 1 ilaa 6. marka intaas ayaad qori kartaa. 1 ilaa 6na waa ay kala sees duwan yihiin. Heading make our document more attractive and beautiful. waxayna leeyahay ciwaanka haddii aynu sameeyno title-keena ama qoraalkeena waxay sababsanaysaa in qoraalkeena uu dad badan soo jiito, yacni website-ka lagu dhiirado in qoraalka la dhaxgalo oo la akhriyo, maadaama oo la helay madaxa qoraalka oo markaa noqonaya ciwaanka. marka ciwaanku faa'iidadaas ayuu leeyahay. qoraalkaagana haddaanu lahayn ciwaan maaha mid qurux badan, isla markaana suuragal tahay in lagu dhiirado in la akhriyo. waayahay, halkan baynu eegaynaa example ahaan H1 waan u jeednaa waatan, H3, H4. markastoo aad taagaad furto unbaad xagga ka soo xidhaysaa sida tusaalaha inooga muuqdaba. marka waxaynu tegi doonaa page-keenii aynu casharkeenii labaad kusoo samaysanay si aynu u aragno isbeddelka dhaca marka la adeegsado headingskan. waayahay, taag baynu furayna la yidhaahdo H1. taagga aan furay halkan baan ka soo xidhayaa H1. intaa markaan sameeyo halkaa dhexe ayaan ku qorayaa qoraal. waayahay, qoraalkeenan waa H1. bal waxaynu eegaynaa qaabka ay u soo baxdo H1. marka waynu save gareynaynaa marka hore Ctrl S. waxaynu kusoo kicinaynaa Chrome-ka sidii caadada ahayd ee aynu kusoo baranay casharkeenii labaad. waad u jeedaan qoraalkeeni waa kan. madaxweynaha qaranka ayaa booqday dalka Turkiga oo qoraalkii aynu ku sameynay H1. bal H2na haynu isla eegno qaabka ay u soo baxdo. intan baa aynu iska koobi karaysano si aynu hadhow uga bedelano lambarka. Ctrl C, xooga hoos u deg, Ctrl V. waliba halkan aan raaciyo BR. waayahay, halkan waan bedelaynaa, waxaan ka dhigaynaa H2. Ctrl S. Chrome-kii baynu kusoo kicinayna. waa labadii qoraal ee aynu sameynay ahaa ciwaanada H1 iyo H2. markastoo aynu xagga numberka weyn
aynu qabanaba qoraalkeena wuu sii yaraanayaa. bal inta kalena haynu raacino inagoo soo koobi garaysanayna. halkan br baan ku darayaa. brna dib ayaan ka sharaxi doonaa faa'iidadeeda iyo waxay qabato. waynu bedbedelaynaa. halkan waxaan ka dhiganaa 3, halka 4, halkana waxaan ka dhigaynaa 5, kaa u dambeeya waxaynu ka dhiganaa 6. halkana waynu iyana sidaasi lamid ah baynu bedelaynaa. number 3, halkan number 4, halkan number laba tiri baan qoray. xaggan waa 4, kan dambe waa 5, keenan ugu dambeeyana waxaa weeye 6. control s markastoo aynu isbedel samayno waynu save garaynaynaa. aynu soo kicino. h1 teeni koowaad waa kan, h2na waa tan, h3na waa kan xiga, h4na waa kan aan hadeer haylid gareeyey, h5na waa kaas aan hadda dul joogno, h6na waa kaa u dambeeya ugu wada yar. markasta oo lambarka weyn loo sii dhawaadaba qoraalku wuu yaraanayaa. headingskuna way kala duwan yihiin sida aynu haddaba aragno. qoraaladana hadba kii ku habboon titlekaaga ama qoraalkaaga ayaad adeegsanaysaa. haddii ciwaan weyn yahay iyo hadduu yahay subtitle intaba waad u adeegsan kartaa. marka intaas baynu kaga baxaynaa ciwaanada. waxaynu gelaynaa html fonts. html fonts plays very important role in making website more user friendly and increasing content rapidly. wuxuu leeyahay waxay ka qayb qaadataa in la sameeyo website qurux badan oo yacni sharaxaadiisu ay badan tahay. waxyaabaha lagu sharaxana dee fontska ka mid ah amaba qoraalka. fonti iyadoo la adeegsanayo font face oo ah in farta nooceeda la bedelo. noocyo badanna way jiraan oo hadeer wordka haddii aad gashaba waad ka heli kartaa noocyo badan oo farta. sidoo kale sida colorka inaad bedesho oo aad hadba midabkaad rabto aad ka dhigato. depend entirely on the computer and browser that is being used to view your page. taas oo markaad isticmaasho browserka aad ka arki doonto isbedelada aad ku samaysay qoraalkaaga. but you can use html fonts. taas oo aad adeegsanayso tagga loo yaqaano html fonts ama tagga kale ah isaguna style. waayahay waxay noo sii raacaa size oo ah inaad farta waaweynaysiiso ama aad yaryareyso. hadba size-ka aad rabto aad ka dhigan karto. changing font color. habka loo bedelayo font colorka. marka hore waxaad qoraysaa font tag, kadib waxaad ku dhex qoraysaa intan taggaas aad halkaa ka furtay. qoraalkiiba dhex gelinaysaa. waxaad soo xidhaysaa taggii loo yaqaanay fonti aad furtay. bal haynu isla eegno. qoraaladii hore ciwaanadu waa kuwan. hoos baynu uga degaynaa. waxay taggii space intaan baxno ayaan soo xidhaynaa. halkii aan spaceka ka baxnay ayaan qoraalka ku qoraynaa. waayahay qoraalkaas ayaan qornay. hadda wax isbedela kumaynaan samayn oo keliya tag un baynu dhex gelinay. oo hadda haddii aynu save garayno aynu browserka kasoo kicino waxaynu arkaynaa qoraalkan oo aan wax isbedela ku dhicin. haddaba isbedele ayaynu ku samayn doonaa. waa kan
dalkeenu waxa uu ka horeeya dalal badan qani ahaan. markaan rabno inaan isbedel ku sameyno farteena waxaynu tagaynaa fointi. markaynu fointi tagno space baynu yara baxaynaa inagoo xayndaabka dhaafaynin. kadibna halkaas baynu ku qoraynaa color equal baynu raacin doonaa inagoo laba semicolon raacin doonaa. halkaa dhexe ayaynu ku qoraynaa magaca midabka, waxaynu ka dhigaynaa red oo casaan ah. intaa ka bacdi control s aynu soo kicino qoraalkeeni waka markaynu browserka kusoo kicinay midab casaan ah buu qaatay. waayahay baliyana waxaynu eegaynaa isbedelka labaad ayaynu ku sameynayna farteena oo ah fointi size, inaynu size-ka farta waaweyneyno. hadeer waa yaryarayd laakiin hadda waynu waaweyneynaa. waxaa xusid mudan farta marka la waaweyneynayo ama la yaryareynayo inaanay lahayn lambar specifica sida ciwaanada aynu soo marnay 6 kaliya ku joogay. marka fointi size xadiga aad leekaysiinayso ikhtiyaarkaada iskale macayina. waxaynu soo koobi garaysanaynaa qoraalkeenan hore control c halkaan aha br ku qoro kalarka siinay baynu ka baabiinaynaa inta kalarkee amarka. waxaynu ku qoraynaa fointi size kadib waxaan raacinaynaa equal iyo semicolomyadii. halkaa waxaynu ku qoraynaa size-ka aynu siinayno fartan balaan 10 siino control s. waa qoraalkeenii u dambeeyay oo aynu ka baabiinay kalarkii ee ahaa dalkeenu waxa uu ka horeeya dalal badan qani ahaan. waad u jeedaan hadda waa waaweynaaday bal cabirkaa ka yarna aynu sii siino. isla kan baynu soo koobi garaysanaynaa control c maadaama aynu bedelayno xaraf kaliya isku hawlimayna inaynu qorno control v. halkan waxaan ka dhigaynaa 6 control s browserkii ayaan soo kicisanaynaa. waa kan qoraalkii ugu dambeeya aynu sameyno oo lambar 6 kan ka sareeya lambar 10 ayuu ahaa. marka adigu hadba cabirka aad jeceshahay ayaad gashanaysaa ikhtiyaarka markaa adiga iskale. maanta casharkeenu intaas ayuu ku koobnaa labada taag. kooraskuna waa u socon doona insha allahu tacaala. waxaana naga go-an inaanu kooraska dhammaystirno oo waxaanu baranay ummadda Soomaaliyeed aanu soo gudbino. idinkuna aad baad mahadsantihiin sida wanaagsan aad ula socotaan casharka. khayr ayaan idin rajeynayaa iyo inaad fahantaan casharkan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.